inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. ilaahay waxaynu uga baryaynaa dabkaa ka kacay suuqa waaheen in ilaahay ka qaboojiyo, halkaan ilaahay ku baktiyo oo awoodiisa usoo diro. dabkani kole reer Hargeysa waxa uu yahay wake up call qof kastoo Hargeysa ku nool ama Somaliland. mas-uuliyadda maogtay ka saaran ummadda iyagu iskood xoolahoodii iyo hantidoodii halkaa u geliyey. dadka mas-uuliyiinta u sheeganayaan waajib baa ka saaran. waxaan arkaa qof kasta oo maanta maayirka magaalooyinka waxau ku wareegeystaa meelo wadooyin oo magaalada banaankeeda ka ah, laakiin maanta meeshii reeda hantidii yarayday dadku ayagu iskood isu xilqaameyn taalay. lagama yaabo maanta in wada yar laga baneeyo ama la dhaho mas-uuliyad baa ka saaran. waa fardul cayn iyo fardul kifaaya waxaa la yidhaahdo. waxaa laga yaaba inuu maanta wadooyin dibadda ka baxsan iyo magaalada wax ka baxsanan markaa loo baahnayn uu qofka awood saaro, laakiin aan siyaasad iyo diirnax aysan ku jirin. maanta haddii dabka caawa ka kacay Hargeysa bay moogtahay la mid tahay magaalo kastoo Soomaaliyeedna oo tabtaasoo kale. qofka mas-uulka waxaad arkaysaa wixii baahidii ugu badnayd maanta waa waajib, aakhirina waa la weydiinayaa. intaasoo sanadood baad xil haysay, maxaad waddo ugu sameyn weyday? meelahan bacaha ka samaysan qofka xitaa moogtahay inaad mas-uuliyadda qaadatid oo aad dadka wacyigeliso tiraada xitaa ama awooddaad u adeegsatid. inta qarash badan lagu bixinaya siyaasad iyo reer hebel iyo campaign waxaa ka fiican moogta in dadka xoolooda loo ilaaliyo. banaanadana aad wareegeysaan aad leedihiin jid iyo town plan baanu sameynayna, waxaa xaq ku leh qofka magaalada ee hantidiisi geliyey inaad u maamushaan, keliya aad u ilaalisaan. qofkana asagaa ganacsanaya, hawshiisa asagaa wata, aakhirina waa lagula xisaabtamayaa. mas-uuliyadda reer Hargeysana wake up call buu yahay. 30 sano kadib dhibaatada maanta ka dhacday ee xanuunka badan, qof walba maanta cid dowlada iyo cid caawisay moogta ma jirin. hooyooyin iyo dad masaakiina baa ku ganacsanaya, hantidoodii geliyey. dowlad caawinaysa ma jirin, meel kale ay hanti ka heleen ma lahayn. keliya waxay u baahayn ummadda in la hago oo mas-uuliyad loo dareemo oo la dhayo inu jid u banayno. waxyaalahan laga sameynaya ee qofku hantidiisa uu ku aaminayo ha laga wacyigeliyo oo sharci ha laga soo saaro, jid ha loo baneeyo. maxaad maanta lagaga wareegayaa in maanta ama siyaasad ama magaalada ama jidka qof caafimaad qaba oo hantidiisa badbaadin karaa meel wada ah loo sameeyaa, laakiin qof hantidiisa riskigaa ku dhex jirtay maanta intaasoo milyan oo dollar maanta ku qasaarooday. mas-uuliyaddaas waa lagula xisaabtamay, aakhirina waa lagu weydiinayaa. qofka si kasta ha u fiicnaado, ha u hadal wacnaado, laakiin waynu mas-uuliyaddaas moogtay qaataa oo aad listi xitaa uu dareemaa u dhaha qaladkaasi moogtay uu ka yimi. hantidaa maanta halkaa ku baabaaday ee dadka masaakiinta ayuu iskood isu urursaday, taasaa u baahan in la ilaaliyo, waddo loo sameeyo. 30 sano kadib lagama yeelaya meelihii nabadgelyadaha intanoo kale ka dhacdo. maanta ilaa 6 saacadood baa la badbaadin kari laayahay hantidiinii, waddo laga soo galaan jirin. suuqa dhan ee hantidu taallaa baca iyo waxyaalaha aan dabka sii kicinaya iyo xadhka aan nadaamsanayn baa ka jira. mas-uuliyaddaas oo lagula xisaabtamaya cid walba oo moogtahay taalla. waana ku damiir xumo qof kastoo mas-uuliyadda lugta la gashay inuu maanta ka garaabi waayo. 30 sano kadibna arrintaasi nagu dhacdo oo dadkii masaakiinta ahaa. keliya Soomaalidu waxay u baahan tahay iyaga hantidooda, guryahooda, dabaqyadooda waxaasuna ayagaa dhista. wayna cadaalad helaan oo loo kala cadaalad sameeyo, ka saldhiga taga iyo ka hantidiisa un loo ilaaliyo. qofka isagaa dabaqyadaas iyo quruxdaad arkaysa moogtay sameeyey. marka insha allahu tacaala waxaan leenahay reer Hargeysa waxay idin yihiin oo kale arrintani inaad ku cibro qaadataan. magaalooyinka kale la midka ah Boosaaso, Hargeysa iyo wax la yiraahdo Garowe iyo waaweynna tanoo kale way ku dhici kartaa. inaad ka taxadartaan insha allahu tacaala. inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun.